gudoomiyaha xisbiga u ciiday gobolka Togdheer Saad Cabdi Boos oo wareysi gaar ah siinayay TV-ga Somali Cable ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay waraaq xilka lagaga qaadayo oo uu soo saaray xogayaha gobolada iyo degmooyinka ee xisbigaasi wuxuuna sheegay in waraaqdaasi sharciga baalmarsan tahay isagoo intaasi ku daray inaanu xogayuhu awood u lahayn xilka qaadistiisa iyo sidoo kale magacaabistaba Saad Cabdi Boos oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay inuu xisbiga u cud u muuqdo mid ku socda wadadii uu maray xisbigii udub waa sida uu hadalka u dhigay wuxuuna ugu baaqay madaxda xisbiga inay ka leexiyaan xisbiga wadadan khaldan ee uu ku socdo gudoomiyaha ayaa sheegay inuu warqadda iscasilaada u gudbiyay gudoomiyaha xisbiga muddo laga joogo haatan 2 bilood isla markaana uu sugayay jawaabta ka soo baxday gudoomiyaha balse uu ku war helay waraaqdan xilka lagaga qaadayo waa kan gudoomiyaha oo arrimahaasi iyo arrimo kaleba ka hadlaya shaafici walba maadsan tahay xilkaariga markii hore waxay magacaabay gudoomiyaha xisbiga kadib markuu la tashaday guddiga fulinta sida ku qoran warqadda magacaabideeda sida uu nidaamka xisbiyadu dhigayo nidaamka dawliga ah ee systemka dimuqraadiga ah inuu qaadanay uu dhigayo barasaab gobol marka la magacaabayo ama gudoomiye gobol xisbi ama magacaaba ama dawlad ha magacawday waxa magacaaba gudoomiyaha xisbigaas ayaa magacaaba awoodda xilka qaadidana waxa la gudoomiyaha leh warqadaasina runtii shalay toole waan arkay xalan arkay waa sharci darro waxay baalmarsan tahay brotokoolka iyo nidaamka xisbiga waxay baalmarsan tahay nidaamka dimuqraadiga waxay baalmarsan tahay nidaamkii iyo xeerarkii xisbiga ay baalmarsan tahay gudoomiye gobol mana magacaabi karo xilkana kama qaadi karo xogaye kamid ah xogayaasha xisbiyadu hadda warqadda soo baxday waxa leedahay waa sharci darro warqadaasi waa sharci darro waxaase kaba horeysay runtii oo meesha ku jirta 25 bishii December 2018 ayaan gudoomiyaha xisbiga anigu u qoray warqad iscasilaada anigoo maraya nidaamka iyo brotokoolka sharcigu dhigayo xilkii la magacaabay inaan istiqaaladiisii soo celiyay oo aan u diray oo aan ku waxa weeye gudoomiyaha waxa waliba doonaya inaan jecelahay inaad iga aqbasho jawaabtii aan sugayay ee runtii ahayd waxa weeye iscasilaadaada waa laga aqbalay waxa ka dambeysay waxaan sharci darrada runtii la soo malmaluuqay oo aan wax sharciga waafaqsan iyaduna ahayn ka lagu magacaabayna waa sharci darro ka laga qaadayna waa sharci darro si official ayaan gudoomiyaha ugu gudbiyay istiqaalada sidaas aan waxa weeye 25 bishii December aan isku casilaan marka wax leedahay iscasilaadadu way ka sii horeysay waqtigan waraaqdu soo baxayso already way ka horeysay waxaan aaminsanahay waxyaabaha keenay in warqadda la soo qorqoro inay tahayba sideebu waxa weeye u aqbali waayay inuu xilka uga tagay xilkana xor baan ahay waxa weeye xisbiga anoo danaynayo waxa weeye xorriyadeyda baan ku soo biiray anigoo danaynayo waxa weeye marba meeshan danaynayo waxa weeye aniga fikirkayga waafaqsan aaraadaydu ka soconayso raayigayga ka soconayo aan waxa weeye qof waxa weeye siyaasadda aragti u soo galay baan ahay aqoon baan u soo galay waxaan ku tala galay aqoonta aan leeyahay bulshadayda inaan uga faa'iideeyo hadba meesha ka soconayso aragtidaydu ayaan ka cabiraya markaan ku biirayna waxaan u arkay meel aragtida ka soconayso hadda ay ka socon weydina hadba meesha ay ka soconayso aragtida raayigayga iga waafaqsan baan waxa weeye ka qayb galaya xisbiyada dalkuna waa farbadan xisbi qaran la joogo waxa weeye si heer qaran xisbiga lagu magacaabay si official lagu magacaabay hadii xilka qaadisteeda la sameeyayna waxa loogu sameyn lahaa oo lagu magacaabi lahaa xilka qaadista qaab sharciga waafaqsan oo nidaamka xisbiga waafaqsan halka waxa ka muuqata runtii dhaliil weyn baa ka muuqata waxaan u soo jeedinayaa gudoomiyaha xisbiga Engineer Faisal Cali Waraabe inuu xisbigu hanti qaran yahay inaanu ahayn hanti family iyo hanti qoys midna aanu ahayn xisbigu xisbi qaran yahay baan qirsanahay laakiin waxaan u sheegay gudoomiyaha ka codsanaya inuu xisbiga nidaamkiisa ku soo celiyo oo dadka waxa weeye runtii xisbiga danaynaya ee hogaankiisa iyo nidaamkiisa isaga la dhacsan inuu jaha saxan u tujiyo inuu si wanaagsan iyo sharaf leh oo nidaamka waafaqsan oo brotokoolka waafaqsan cidii xil loo magacaabayna xilka loogu magacaabo cidii xilka laga qaadayna si official xilka looga qaado shahada uu hadda ku socdo xisbigaas hadaan laga leexin oo ilaahay dad ka leexiya aan u soo dirin shahada aan maanta arkayo waxa mustaqbalka dhixi doona anigu warkamayo ma saadaalin karo laakiin waxa maanta aan arkayaan ku go'aan qaadanaya waxa weeye xisbigaas inuu waxa weeye wadadii xisbigii udub uu maray inuu marayo oo already uu taageerada bulshada uu ka burburay inuu taageerada madaxdana inuu ka burburo oo dadkii xilalka ka hayay maalin mid ka tago maalin mid warqad loo soo malmaluuqo xisbigaas waxaan u maleynayaa waxa weeye aakhirkii uu burburi doono anigu saarnay aan qabo Shaafici Maxamed Ibrahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer